taliyaha warka uu ka hadlayaay waa sida uu sheegay intan hadda waa intii da'da u badnayd ciidanka badi laga bilaabo bulo guduud iyo ilaa iyo sanguuni isdaba yaala ciidankaasi waxaan u malaynayaa dareyskiisu inaad arkaysa dayacaadda ku jirta iyo siduu yahay kuwana maalin walba socod bay ku jiraan danab iyo howlgal dareyskan hadda ugu dambeynaysa aan kuu sheegaya kuwii daraawiishta aan usoo gadnay baan siinay dhibaatada jirtana waxaa weeye mudane ra-iisul wasaare siyaasaddu amniga ma gasho ciidankuna siyaasad ma galaan ciidankaas maalintii la qorayey waxaan u malaya indho qarsha ahaa taliyaha xoogga dalka waxaa lagu qoray intii halkan qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan baa degan intii la qaaday baa la qaybiyey idan ciidanka noocaasa dee ciidan maanta la dayici karayo ma aha meesha hadda deegaanada kale qabiil iyo ciidankaas guutada reeba la odhanaya tan intaa hadda adu wejigooda fiiriso wax badaan oo soomaali jinsigeeda ku kala maqan baad arkaysa laakiin sida uu sheegayo korneylku cabashada iyo tabashada waxaan u malaynayaa 5 taliyo xoogga dalka Soomaaliyeed baan anigu recommendation uga galay iyo madaxweyneyaalba inay dalacaad ay leeyihiin iyo xuquuqda ay leeyihiin ay helaan waxaa la yidhi qaarkood dablayaal baa tihiin saraakiishan hadda waa intii qamaamiirta ahayd ee duqowday 30 sanaan gaashaan la sar ahaa buu leeyahay waa raggii ilaa xuduudka nagala soo bilaabay dagaalka ee markii dambe kamaanga ku xarooday kulli saraakiishan waa saraakiishii hore garaadahana waa kuwii wadatay sayr jito gacanteedu dalacaadda halkanna way ka yara xirxiran tahay lama qorto waana runtii oo rasaastii iyo riboodkan oo dhan waan ku siiyey saakaa golaha wasiirada horteeda kaasi xalay baan kuu sheegay ciidankan moralkiisa yaan la jebin amisom ma raacdo mar lama daba gasho meesha abciyada faraha badaan tuulooyinka iyo qabailada dhexdooda la isku laynayo baabuurtaa qamaamirkii halkaa farfadhida iyo cabdibilayaashan iska fadhiista iyo intan danabo qolada maraykanka xoogaa ku caawiyaan yaa maanta wax gaadida meesha yaalo 16 baabuur bay baabuurta cabdibilayaasha loo keenay weligoodba maxaa maanta ka fayo 16 kaas hal baabuur oo ka dambeeyana lama keenin hal baabuur oo ka horeeyana lama keenin duruufta ka hadlayaan waa wax dhaba dalacaad ma jirto oo ogaansho ma jirto oo qaar badan oo kamid ah hadda xuquuqdii mushaharka xataa way ka maqan tahay waxaan rajaynayaa inaad ribood dhaba kala tegi doonto iyadoo wasiiradaadina ay goobjoog ka yihiin mudane ra-iisul wasaare waa dhalinyaro Soomaaliyeed maalin walba dhaawacooda iyo dhimashadooda taagan haddii ay kii dhintayna wax xuquuq loo waayo kii dhaawac ahaana wax dhayo la waayo kii hawlgalayna uu gaadiid waayo maalin walbana ay arkaan Turkiga wuxuu keenay abcyo qatar baa keentay talyaaniga keenay habarkuuley baa la siiyey heelay ka baxday moralka ciidanku intee leeg hoos u dhacay hal la ilaaliyo ciidanka iyo wiilasha iyo gabdhahaas moralkooda waxaan dawlad ku nahay waa iyaga amisomna dawlad kuma nihin ciidan kale oo nacaawiyana dawlad kuma nihin generaalku wuxuu yidhi mariina awey hal oday oo duqoobi baa ka joogay waxba looma keenin gaadiid ma haysto weydii hadda shaan cadoo kale adigaa kan la yimid soo maha hal xaboo dirayso xataa dawlad u keentay ma jirto ciidan facility uu ku qorto iyo wuxuu ku raadsada maayo keligii baa mariina waa keligii duul keligii baa mariina waxay u baahan tahay dawladnimadu mudane ra-iisul wasaare cadaaladda kama soo hadho dadkani berri inay conflict ka dhacay wax kala sheegtaan oo qoryaha ay la tagtagaan maxaa dhacay waxa keenaya waxa ay dareemayaan ha helaan xuquuqda ay leeyihiin ciidamadu ha helaan kuwa qatar iyo turkiga iyo talyaanigu ay keenaan ha helaan waxa xoogga dalka loo keenay loo qaybiyo waa dad Soomaaliyeed tababartay xuquuq leh intaas soo halgamay garaadana waatan ku sheegay gaashaan laan ku wareejinay kabtan baan ku wareejinay la wax digla leeyahay inta in lag waa habeen walba way socdaan kuwa maana waxa la saddex halblayaal yaa la idin siinaya ciidanka markaan wareejinayna ciidanka ugu xulsan bay ahaayeen ama nabadsuuda ha noqdeen ama daraawiishta ha noqdeen ee Jubbaland kuwana iyagoo inta leeg baan inta u badan soo wareejinay oo raggii waliba soo hawlgalay ah ra-iisul wasaare anoo og niyad wanaagaaga iyo inaadan waxba ka reebayn iyo culayska ciidanka aad u dareemayso waxaan leeyahay ku soo dhow